kaalay dhulbaanto marxuumka iska daaya idinka waaya Soomahan saacada laga bilaabo la sacaanadu waa gobol ka tirsan Somaliland waa gobol kamida Soomaaliya adeer macaan diinta abiin karta filibgaray barnaamij marna waa hilmaamnay la sacaanadu in gobol ka tirsan Somaliland tahay Somaliland bismillahir rahmaanir rahiim ninaan balaayo arag baa xiriir balaayo arag ninkan wuxuu ka tirsan yahay askarta Puntland buu ka tirsan yahay waliba guutooda wuxuu ka tirsan yahay gobolka Mudug ciidamada gobolka Mudug waa nin Cumar Axmuud oo askarta Puntland ka tirsan wuxuu qaaday calamadii Somaliland buu qaaday oo gaari ku qaaday horta nin baa waa lagu tashta meesha lagu tashtabiyo Ilaahay ma joogin ninkan calamadii markuu qaaday maamulka SSC ma fashilin kan Puntland garow uu tagay hotel Caduur hotel la dhaw laba habeen seexday oo habeenkii $100 lacag gaaris lagu seexdo gaari baa u kireysnaa cusub shidaalka ugu jiray qaadkiisa u saarnaa waa nin la abaabulay oo maamulka Puntland u diray weey tukaraq markuu maraya gaariga la dhacay ninkan haddii maamulka SSC Khaatumo ay ninkii dadkii caawimaad u fidiyeen gaarigu la gadoomayna waxa loogu tagay gaarigii ninna waa ku dhaawacmay ninkan iyo nin kale oo miir qabo oo caadiya iyo calamadii Somaliland afka gaariga ka haya hadda xabsi uu ku jiraa Faisal Cabdi Bootaan buu caaw la shaaheynaya liinta la cabiya qisada kaga sheekanaya wiilkan oo soo noqonaya Cabdi Madooban arrinkan weydiiya dhulbaantana arrinkan aad weydiiya waagi la sacaano aan joogay ba ciidamada Cabdi Madoobe nin ku dhex jira oo Cumar Axmuud oo Somaliland xogta siiya ba ciidanka Cabdi Madoobe lagu dhex qabtay waagaas dagaal baa markaa socday xabadu waa socotay waxa la gacmo geel jiro hoos baa loo dhaqaayay Cabdi Madoobe inuu dulubi rabay kow ka siiyo shalay ma daraad bay ka tagtay habeenka markaa la qabanayo taliska anigu joogay ninka Cabdi Madoobe waa wada joognay waxa dhacday arrintii ninkii la qabtay sidii ba arrintiisa loo xaliyo de harti gudihii ma dhaafino laakiin dhulbaantu 90% warkii waa gaaray Ilaahay baa kugu dhaariyay hadda ma waxaan dadka ka dhaadhicin rabnaa wiilka dhalinyarada baa intuu harqaan tagay oo calamada Somaliland tashay oo hotel degay oo gaari cusub kireystay buu kaligii meeshaas ka aaday si ra'iisul wasaaraha safarkiisa calanka Somaliland loo dhex ordo oo dadka Khaatumo loo soo radxoomay maamulka Puntland baa soo abaabulay waliba labada hadda jooga Ismaan Axmuudka iyo Cumar Axmuudka aad baa waxa uga maqashaan Ciise Axmuud baa Somaliland wata horta reerka Ciise Axmuud la waa qooro wuxuu u dhaxeeyaa gus iyo futo u dhaxeeyaa labadaas najaasa ka timaada balse qooraha najaasada ku bacda wiilashiisa maxaabiis ahaan u xirxiran dhulbaanta Ciise Axmuud dhul iyo deegaan bay wada leeyihiin Ciise Axmuud wuxuu shalay raadinay kursiga waa la garanayaa kursina deenin raga doona doqon baa niikse ilaa nin raga uu garanaya wixii uu doonayo adigu waxaas magac xuma reerka lagu tiray dadkii walaaqiyo waa kuwaasa dadkii Somaliland xogta siinaya waa kuwaasa maanta Ilaahay baa fashiliyay marka sagaar illa maray markuu Ilaahay kula gadiyo oo lagu yimaado oo wixii aa waday waa waxa ka shaqeynayay way oo talku ku kala tagayay oo ummadda ku kala dheeraanaysay oo lagu kala dhimanayay oo adiga naftaada qulqulatada galiyay bal hadda xoogan calamadaas intay ku qaadaan ay calanka iyagoo Somaliland ku qancinayo cirra ku qancinaya oo shacabka Somaliland ku qancinaya oo dalkood dekanada inta la ka galaya rabbi baa kugu dhaariyay ma jecbuur xabad ka socod ma jecbuur taga ee sax quruniyo halkaas dalkood xabad ku haystaa ma isalinta taga oo la soo fadhiyay haday Somaliland ay iska celin karaan jawaasiis bi Somaliland u yihiin ana inii sheegay waa jawaasiis Somaliland marka waxa uu qarinayo maalin kasta qolo ku tira maalin Ciise Axmuud ku tiraya maalin dhulbaantu ku tiraya maalin warsangeli ku tiraya maalin leelkasu ku tiraya maalin dishu ku tiraya maalin marreexaan ku tiraya maalin ugaadeen ku tiraya waa waxa isaga ka dhax guuxay oo dhan oo jawaasiisnimada ah oo falxumada ah oo qaabka daran butulka kula soo meereysay hadda marka maamulka waxaan u diraya fariin u diraya SSC Khaatumo waxa la nimayow waxa la yiri ninka waxa taagan aan garan waxa soo socdana ma garto in maanta idin koreeyay wasaariga Soomaaliya soo dhaweynaya oo ummadda Soomaaliyeed maanta qibladii siyaasadda u noqday waxa keenay in calan Somaliland inta galkacay lagu soo sameeyo oo garow la soo dhaafo oo la soo ordo oo la sacaan la soo aado nimayo waa tolnimada macaan ee ku jirta weey waa xishoodkeedu ku jira weey hadda runta idin sheego wiilkan maamulka Puntland buu askari ka tirsan yahay wala garanaya baraha bulshada uu isticmaala ninaan nabaya maaha ninaan ku raatiranayo maaha ninaan been iyo xmaan ka sheegayo maaha intaas nin lagu yaqaan anigu ma baahiba laakiin waxa meesha ku jira
hadda ma idin iftiimsantahayo Soomaaliya iyo daarooday inta ma u jeedaan in reerkaasi basal quruntay oo daarood ku dhex jiray inay yihiin bal ilaahay maqaadiirtiis waxa maqli jiray anigu ku sheegi maaye 5 bilood iyo ku sheegi hadda goor maama bay leeyihiin hadda goor ba macallin gabar shukaansaday هو مامدي مش كاسد ومعلم دكتور قرآن ويا أمين كنا بيسي مامدي إسلا رفتن قبل دكتور دقيقة تمرك قبل اللي حالي يكون كسي حوي ذي معلم كي مامدي كسي حوي ذي هذا ويح يستري قرآن كي قبل كل دقيقة أنت المعلم واحد فلك يفشل حاله وإن فاتكم مرجع آيات كل دكتور واحد إن فاتكم موت آيات وإن فاتكم بجريه أنت كله جرون مرجع أنت هذا جرون ويدين واتشواسيس نملا تسوي هذا كدب صعب وهذا رجع عمر رحمه الله واتشوس سومالا وشقيوي وعلاقاته دن إسجني كيوي وتركي كوعي جرميس dadka wacay waa dadkii Puntland wada dhistay waa iimaanliyada noocaas iyo khiyaanada noocaas dadka ku caaya oo raayay ku qariyo iska dhigo nin qadiyad leh oo baraaqad leh oo mabda leh oo aragti leh waxa ku dhex jira wallahi ma jiraan hadda la sheekaysato oo si qoto dheer u dhageysato waxa wanaagsan dadkan dad faaruq yihiin marka اساسي خاتمه الهي بهرت وش دحد او قفتay wala alhamdulillah soo qora wala shakartu bi ilahi la azidannakum waxa kale ilaahay dhaxda umada ku ceebeeyay bal wakaasa ku shalay ku lahaa dhulbaanta Soomaaliland wata bal calanka Soomaaliland ma hooyadiisa la maxaa u geeyay bal calanka Soomaaliland bugalka ay ku sameeyay oo la cararay oo la orday oo dhay la yiri oo la sacaan u wada la sacaan ma hooyadiisa degan muxuu la sacaan hada ka doonayo ka rib bal muxuu tolki ka rib هذا الرئيسنا سود وينيا يهدو مشاريع وضو يهدو صحوه ودين يهدو سكي ما يسولون كيسي ديان كيسي ما أنت أصلاً ضد ودي أرسنين فهمان ما قف قدو هالكا هنقولي أو حكم قرانا بعد بعته هذا اللي ما كان سؤال حرير بالليل بقول شر بعدين شيء صوبته رجال حبضوا وسقطه أو قول لي يا دني وقلقلته صوبت دني حرير بالليل لو يبغى بس كل حرير إذا كنا وقتي maxaa runta uga gabanaysan ma runta ku aadintaan oo sheegtaan waxa meeshan khaldan iyo balaayadan qoortan ay kaga marmaran sidinku waxa ka aadagtiin kaliya sida Yaqub Looma ayaa ka aadagtiin iyo reerkiisa waxa kale kama aadkeen Soomaa sida waxaan u khaldan looga hadlo ma garanaysan sida ii sheeg tolka san aan tol lagu sii wada ahaanin ma cadeyn kartaan Soomaa hadaba jireeca idinku idikay tolo saadkay oo waxa noocaana in meel inta lagu soo wada jeesto si qoto dheer loo dabar jarawi waxaani wax ka badan ba soo socda tan waa inta yaro ilaahay kugu tusay ilaahay wali waa jeceliya dhulbaanta oo khaatumo waa jeceliya oo umadiisa iyo midnimadiisa iyo dadka walaalnimada ah ilaahay waa jeceliya laakiin waxa noocaana ilaahay ma jecla waa sababtu gaariga wala gadiyay wi alxamdulillah rabbil alamin baa ilaahay ba fashiliyay eebta inta la eeg baana maanta dhacday eeba kalena waa soo socdaan anigu meeshii wax ka dhacaan degdeg baa u dul taagnaa حقتا وعيدي صور رانيرنا يا وعيدي صور إذا كلمة بين أنا كنت دريم بان هالك إذا كيسو شيء إن شاء الله تعالى سيدا أول صعود نكاس وأن عمر حمودة وعسكرية وإذا ماذا بطلنا كترسن وعلن كقاضي قال كعيو سومالا على ماذا سومالا سريز وزارة اللوسو وين درتيس بو علن ماذا سومالا هو ذي مقالة الأسعارات تركيس نقول دقيقة وقلية دقيقة ذي إلهي سوي وقلية سيا ما أنت فيصل عبد البوطان نينك ووري أو هارتيا أو تشاتشوسا oo ama Soomaaliland ahaan u xiran ninkaas uu noqonaya maanta Umar Maxamuud ka uu noqonaya oo Faysal Cabdi Bootaan Faysal oo tolkiisa la xirnay oo harti oo la saaro jeelkeed ku jira uu noqonaya ninkaas oo qadiyad Soomaaliland u xiran hadda kadib ninkaas oo Soomaaliland way Umar Maxamuud ka meesha aragtaan Umar Soomaaliland u qor Umar Jaajuus u qor wax kale wallahi ha u qorini billah waayo dadka mala tolnimo limo mala wada dhalasho waxeerin midna ma jirto aad baad salaam ya saaxiibay